بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu inaga dhigo mustajaaba dacwa. Insaanka haddii ducadiisa la aqbalo waa insaan towfiiqda alla waafajiye weeye. Sababtoo muraad badan buu insaanku leeyahay, dhibaatooyin badan baa ku imaan kara. ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa uu mar walba u baahan yahay. walihaada qofkii ducadiisa la ajiibo qof ilaahay subxaanahu watacaala u naxariista weeye. waqtiyada ugu qiimaha badan ikhwaani ee laga doonayo insaanku inuu ducaysto allana baryo waa waqtigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay. waa thulutha leyl ee aakhirka ah. habeenka 3 qaybood markii loo qaybiyo, ilaa habeenkii 12 saacadood buu ka kooban yahay meelo badan oo adduunka ah. meelaha kalena wuu ka yaryahay habeenku intaa. 3 meelood habeenkaaga u qaybi meel kastood adduunka ka joogtid. qaybta ugu dambaysa, qaybtaas alla subxaanahu watacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay yanzilu rabbuna ila samaa'i dunyaa. rabbigeen wuxuu usoo degayaa buu samada dhow buu usoo degayaa. samadan dhow buu usoo degayaa. alla subxaanahu watacaala markuu soo degana waa nuzuul yaliiqu bijalaalihi wa cadiimi sulطaanih. walihaada ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisu wuxuu ku leeyahay man yas'alunii faastajiibu lah. yaa dan lahu i weydiistoon ka ajiibaa. yaa doonahaya dembi dhaafan u dembi dhaafaa. yaa xaajo lahoo xaajadiisa aan u gudaa. waa thuluthuleylka ikhwaani. habeen walba markaan seexanno waxaa laga yaabaa dad badan oo inaga mid ah xataa qiyaamuleylka inayna nasiib ku lahayn. qiyaamuleylkuna waxaa laga doonayaa qofka min cishaha laga bilaabo ilaa fajarka laga gaaro weye, intaa qofku inuu xunka tukado ama ha u yaraato ama ha u badnaato. walihaada xabiibkeena calayhi salaatu wasalaam dadka 2 qaybood bay u qaybsan yihiin. qof soo kici kara oo habeenka qeybta dambe thuluthuleylka ama 3 meelood markii habeenka loo qaybiyay qeybta u dambeysa saddexaad fajarka intaan la gaarin ka hor soo kici kara. qofkaasi waxaa wanaagsan waqtiga qiyaamuleylkiisa intuu ka dhigto inuu witirkiisana kusoo khatimo oo dacawaadkiisana ilaahay subxaanahu watacaala uu ku beega ducadiisa iyo allabarigiisa iyo dembi dhaaf alla weydiisashadiisa iyo wax allaaliyi wixii xaaje ah qofkaasi uu qabo ee muraade uu leeyahay inuu saacadaha ikhwaani u bandhigo. qofka kaleeta isaga maaragtay aan soo kici karinna habeenkii cishaha markuu tukada kadib intuusan seexanin ka hor inuu qiyaamuleylkiisa hormarsado oo witirkiisana uu ku khatimo haddii uu soo kici karo waqtigaa. nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam rabbi alcaalamiin inuu samadan dhow u soo degaayo nuzuul yaliiqu bijalaalihi wa cadiimi sulطaanih. oo markaa ilaahay subxaanahu watacaala raxamaadkiisa addoommadiisa usoo bandhigayo uu leeyahy waryaa dan leh, kulligeen dan baynu wada leenahay. waryaa dembi dhaaf u baahan. waryaa xaajo haysaa oo xaajadiisa aan u gudaa. xaqiiqatan rabbulcaalamiin oo sidaa leh inaan ka jawradno ama aan ilaahay wax weydiisan weyno arrintaasi waxay nagu tahay gabadful bay nagu tahay. walilaahi almathalu alaclaa. insaan daciifa oo hadduu waxoogaa ilaahay u dhiibay hadduu maanta ku yidhaahda ii imow saacad hebel ama saacad hebel baa wax ku siinayaa ikhwaani, qofka hordaba ka imaan mayso. caawo dhan wuu soo taagnaanayaa si uu ballantii uu u oofiyo wixii loo ballan qaadayna uu soo qaato. waxaan ilaahay inoo yaboohay ama ilaahay subxaanahu watacaala nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inooga sheegay waa ka shamsiya ka daran weeye. qoraxda raabicada saad ugu jeedaan ka daran bay yaqiin u tahay. insaankuna marxaladda cilmi yaqiin leh hadduu gaadho waxa weeyaan qofkaasi alla subxaanahu watacaala wuu ka baryahayaa fadligiisa saacad walba iyo waqti walba. ikhwaani, baahi badan baan u qabnaa rabbilcaalamiin. duruufo adag baa ina haya. shaakilaad badan baa ummadeenna ku furan. nafteennana aan ilaahay u barino, ummadeenna iyo duriyadeenna iyo aswaajteenna iyo ummadeennana ilaahay aan u barino. aktafi bihada alqadar. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا. يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر
الدار. يا خالقنا يا رب. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة، ندعو إلى الإسلام على هدي خير الأنام.